bismillahi raxmaan raxiim. cashirkeena ugu dambeeya wuxuu ahaa saving workbook markii la save garanayo sidee loo save garayaa. horey waxaa usoo qaadanay documentiga markii la joogo sidee loo save garayaa, save as lahaa, waxaas dhan soo qaadanay. haddana muraajaca ahaan dib inaa u sameysa isku day adiga intaana aan sameynin. marka waxaa leenahay after creating a workbook, markaa sameysa workbook you can save it on your computerka ku save garaysan kartaa. use waxaa isticmaashaa the save as command marka aad rabtid when you save a workbook, markaa save garanaysa workbook for the first time marka ugu horeyso, or ama if you want direct to save inaad save garaysid a copy of a workbook in a different location, booska u yaal maana boos kale inaad ku save garaysa direct with a different file name magaca hadda ku qoran maana magaca kale aad rabtid inaad ku save garaysa direct isticmaal save as, or ama different file format direct inaad isticmaasho. use waxaa leenahay the save isticmaal. savena waxaa isticmaali kartaa comediga, waxaa isticmaali kartaa to save hadaa rabtid inaad save garisay changes isbedelada than existing workbook hore u jira markaa wax isbedel ku sameynaysa. waxaa leenahay we have already learned it, waa soo baranay marka practicada adaa kugu daanaynaa. waxaa sameynaysaa isku day save samey, save as samey, Microsoft Wordka intaa kusoo qaadatay in lamid waay. waxaa leenahay opening workbook sida loo soo furaa. you can locate and open existing workbook hore u jira. waxaa sameyn kartaa inaad dib usoo furtid from the start screen oo isticmaala when Excel starts. markaa soo kacisay from the open page kusoo baxo backstage view, the start screen and the open page also displays wuxuu soo bandhigaya a list of recently used workbook which can be quickly opened, kaasoo kaaga soo furmaayo by clicking on seeing them. each workbook opens in its own window oo kugu soo furmaayo, making it easier to work on two workbooks at once. marka waxay taas kuu fududeynaysaa in laba workbook aad ku shaqeysid laba workbook si fudud. waxaa leenahay moving around and making selections, sidee loogu dhex socdaa selection loo sameeyo. this section covers waxaa ku baran doonaa how to perform sida loo qabto basic tasks shaqooyinka asaasiga such as moving around worksheetka inaad ku dhex socon kartid, ama selecting a cells inaad dooratid, row ama column inaad dooran kartid. tableka waxaa noo sharxayaa navigation keyboard shortcut la. marka keyboardka markaa isticmaalaysid oo computerkaaga ama ishaga desktopka waxaa isticmaali kartaa keygaana isticmaalaysaa, shaqadaana kuu qabanaa. marka hadaa dhahday down arrow ama enter mid kamida aad sameysid wuxuu sameynaya moves the active cell one cell laban hal cell hoos kugu sikinaya. hadaa dhahday up arrow ama shift plus enter wuxuu sameyn doonaa moves the active cell one cell up kor kugu geenaya. hadaa dhahdid right arrow ama tab, hadaa dhahdid midkood wuxuu sameyn doonaa moves the active cellka aad taagan tahay wuxuu u move garaynaya one cell hal cell to the right dhanka midigta. hadaa dhahdid left arrow ama shift plus tab midkood wuxuu sameynaya inuu active cellkaaga move gareeyo, wuxuuna move gareynayaa dhanka bidixda hal cell. hadaa dhahdid page down wuxuu sameyn doonaa in uu move gareeyo cellkaaga hal page oona hoos u move gareeyo. page up hadaa dhahdid wuxuu sameyn doonaa move the active cellka markaas aad taaganto move gareynaya, wuxuuna u move gareynayaa one page qaybta kor u move gareynaya. alt plus page down hadaa dhahdid ayadana wuxuu sameynaya move the active cell right one page dhanka midigta hal page uu move gareynaya. hadaa dhahdid alt plus page up wuxuu sameyn doonaa move the active cell left dhanka bidixda uu move gareynaya one page hal page. hadaa dhahdid control plus home ayadana wuxuu sameynaya move the active cell to cell a1 oo kale ku geenaya. control plus indi hadaa dhahdid ayadana wuxuu sameynaya move the active cellkaaga wuxuu sameynaya to the last cell used in the cell in the worksheet. marka cellka u dambeeya aad isticmaalaysid oo environmentiga worksheetka qaybta documenti ama qoraal kugu qoran yahay ayuu wuxuu sameyn doonaa qaybta u dambeysa geen doonaa. select marka la dooranayo cell, row iyo column waxaa leenahay in order to work with a cell marka aan rabno inaan ku shaqeyno cellka you must first select waa inaad dooratid when you want markaa rabtid to work with a more than one cell hadaa rabtid inaad ku shaqeyso at a time. you can quickly si dhaqso leh waxaa ku dooran kartaa select range, rows, columns inta waa dooran kartaa, or ama
the entire worksheet ayaa dooran kartaa. To select a single cell haddii rabtid inaad dooratid waxaa leenahay click the desired cell-ka aad u baahan tahay. sidaan oo kale waa kana kaliya la siinaysaa bas. haddii rabtid inaad dooratid select range of cells haddii rabtid inaad dooratid kaliya waxaa siisaa first cell-ka ugu horeeyo marka hore kadibna inta ay ku jirto xogtaada ayaa waxaa qabanaysaa hold down the shift key qabo and then kaliya waxaa siisaa the last cell in the range markaas aad u baahan tahay. or ama waxaa samayn kartaa drag from the last from the first cell in the range to the last cell midka ugu dambeeya adoo sii socdo. waxaa leenahay marka to select the direct inaad dooratid non adjacent cells waxaa leenahay select first cell or range holding down waxaa qabataa control and then select aad doorta the other cells or ama ranges. haddii rabtid select single row or column inaad dooratid waxaa leenahay click waxaa siisaa the header of the rowga aad rabtid ama column-ka aad rabtid inaad select garaysid. row header waa kana column headerna waa kana hore ugu soo hadalnay waana arki doonaa. haddii rabtid marka inaad dooratid cell worksheet-kaaga dhammaan cellska ku jiro click waxaa siisaa select all button in the upper left corner of the worksheet qaybta bidixda ee sare ee worksheet-kaaga ama waxaa dhigi kartaa control plus a kadibna sidaan oo helad kugu wada saari doona. sectionka aanu dhamaaday practical sameynayna. okay waxaa leenahay practical waxaa bilaabaynaa save iyo save as ka bilaabaynaa. hadda documentigan ii diyaarsan book 1 oo igu soo saaray automatic waxaa la rabaa marka inaad save garaysto waxaa leenahay file kadib waxaa leenahay save as kadib waxaa dooranaa location-ka aad rabo in la ii dhigo waxaa leenahay tusaale browse kadib waxaa ka dooranayaa documents kadib documents waxaa iiga dhigtaa meelahan oo kale test kadib waxaa leenahay test 1 kadib waxaa leenahay save. sidaas waxaa ku save gareeyay workbook-gayga ii furnaa. haddaan rabo marka inaad dib u save gareeyo save as hadda isticmaal sooma save aa rabaa inaad isticmaal hadda save as isticmaal save aa rabaa inaad isticmaal save waxaa u isticmaali kartaa tusaale meeshan waxaa kusoo dartay liiskii kuu qornaa waxaa kusoo dartay qof cusub kusoo dartay kadib waxaa leenahay qofka marka kusoo daro documentiga ama workbook-gayga hadda waa ku qoray laakiin haddaa ka baxo iima save garaysan oo hadhow iima galaya. marka si aad u save garaysto waxaa laga file kadibna save ama waxaa dhigi kartaa control s si hawl fudud markasta marka aad wax qortid ama documentiga ama workbook-ga wax kusoo dartid control s dheh si wixii dambe oo cusbaa kusoo dartay lagugu daro kuwii hore. sidaas marka waxaad isticmaali kartaa save as. workbook hore sida loo soo furaa oo horey u jiray waxaa leenahay file aad tagaysaa kadib waxaad doonanaysaa open kadib waxaa leenahay recent works waa kana marka waxyaabo ugu dambeeya isticmaalaysa kuwana mid kaareed soo furo kadibna hadda work plan oo kale aad soo furto sidana ii soo bixi doona. haddaan dhaho mid kale tusaale open aan dhaho mar kale kadibna aan dhaho haddana testiga aad ku laabto midkaan ii soo baxay soo ma jeedi. marka qaabkaas waxaa u isticmaali kartaa in aad open samaysid. sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad file laadi open markaad dhahdi kadibna gudaha aad ka dooratid computer meeshaan computerka soo gashay browse aad dhahdi folderska gudaha kuugu jira inaad kasoo dooratid midka aad rabtid adaa yaqaan meeshuu yaalo. waxaa leenahay marka moving around worksheet-ka marka inaad ku dhex socoto hadaa rabtid maxaa samayn kartaa. marka ku dhex soconayso waxaa isticmaali doonaa keyboardka marka ama computerka oo laptopka isticmaal ama waxaa isticmaashaa desktopka external keyboardkiisa marka isku mid waaye. waxaa ku bilaabaynaa qaybta hore oo wuxuu leeyahay down arrow ama enter. hadaa dhaho falaarta qaybta hoose laptopka ama external keyboardka wuxuu leeyahay 4 falaar midda hoos u jeedo hadaa taabto wuxuu sameynaa hoos inuu u wado. hadaa enter dhaho ayadana wuxuu sameynaa hoos inuu u wado waa isku shaqay qabanayaan. up arrow hadaa dhaho ayadana wuxuu sameynaa kor u wadaa. haye shift iyo enter hadaa isla qabto ka waran shift yaa qabtay enter leh shift yaa haya enter kor u wado soo ma jeedi. hadaa rabo marka ka waran right arrow aad taabto maxaa dhacaya dhanka midigta u wadaa. tab hadaa dhaho ka waran ayadana sidoo kale dhanka midigta u wadaa. macnaha labo waxaa lagu siiyaa key hal shaqo ay qabanayaan. marka
labadii kii lagu siiba hal shaqay qabanaa. Marka midka kugu fudud aa xasuusan karto inta badan isticmaal. left arrow hadaa dhaho ka waran ayadana dhanka bidixda ii soo celinaa. shift plus tab hadaa dhaho fiiri ayadana sidoo kale weli bidixda ii wadaa. hadaa rabo page down ka waran page down hadaa dhaho keyboardka caadi uu qoran yahay, page down caadi u taaban kartaa. maxaa leenahay marka page down markaa sameynayno? waxaa sameyn karnaa markaa sameynaysid page down keyboardkaaga ka fiiri, waxaa sameyn kartaa in aad taabatid page down. page down markaa taagtid wuxuu sameynayaa qaybta hoose oo hal page kuu wadaya. marka page up ayadana keyboardkaaga qaybta midigta ku qoran yahay si fiican ooga fiiri. page up hadaa ku dhufatid wuxuu sameynayaa qaybta koro hal page kor kuu wadaya. waxaa jirta waxa la yiraahdo alt plus page down. alt plus page down asaga wuxuu sameynayaa in active cell-ka uu u dhaqaajiyo hal page dhanka midigta. marka hadaa dhaho keyboardka alt ya taabanaysaa, kadib waxaa la taabanaysaa page down. marka alt plus page down hadaa dhahdid wuxuu sameynayaa dhanka midigta ayuu wuxuu u wadayaa hal page. marka cagsi waxaa ku alt plus page up wuxuu sameynayaa ayadana alt qabo kadibna page up taabo keyboardka dhanka bidixda wuxuu usoo wadayaa hal page. ayadana waxaa control plus home hadaa dhaho control qabo kadibna home taabo. tusaale control qabtay home muxuu sameeyey xarafka u horeeya ama cellka u horeeya geena. cellka u horeeya maxaa waaye cellka magaciis A1 allah cell A1 waa midka u horeeya sooma. marka cell A1 aa dhihi karnaa. waxaa jiro control plus end ayadana wuxuu sameynayaa meesha wuxuu geenayaa meesha xogta kugu qoran meesha u dambeyso uu geenayaa. anaa control end wuxuu sameynayaa fiiri control end control end ayadana waa arki doonaa. okay waxaa leenahay qaybtaas waa ka gudbeynaa. waxaa leenahay sidee loo sameeyaa select cell iyo row iyo cell sidee loo doortaa. row iyo cell markii la dooranayo cell hadaa rabti kaliya inaad dooratid kaligaa siinaysaa sidaasa cell ku dooratid. row hadaa rabti iyo column waxaa sameyn kartaa. row waa kanaa tusaale numberska taga isku aadinaysaa numberka rabti row sidaas ku dooran kartaa. column xarfaas isku aadinaysaa sidaasna ku dooran kartaa. sidoo kale hadaa rabti range maxaa sameyn kartaa. tusaale inta ilaa iyo inta rabaa waxaa leenahay inta tag kadibna shift qabo kadib waxaa la meesha u dambeysa click sidaas waxa ku dooratay range. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa adoo muuska ama touchbar isticmaala meesha ka bilaabanayo tag kadibna soo jiid ilaa meesha uu ku dhamaanayo geey. sidaas wax ku sameyn kartaa range in aad ku doorato. waxaa kaloo sameyn kartaa kuwa aad daris ahayn iyo kuwa daris ahayn inaad dooratid. tusaale waxaad doortay column-kan waxaa rabaa inaad row doorto haddana waxaa qabanaya control kadibna row sidaas ku doorato. haddana column kala rabaa control qabo ku dhufo. haddana column kala rabaa control qabo ku dhufo. sidaas waxaa ku dooratay column. column markaad dooranayso marka qaabkaasaa ku dooran kartaa oo adjacent ma ahaynin adjacent waay. marka kuwa daris hadaa rabti marka inaad dooratay f ilaa iyo k aa rabaa isku wada xiran shift yaa qabanaa kaligaasina hal mar iyo wada dooraa soo ma jeed. laakiin kan aa rabaa haddana k kaligeeda rabaa waxaa dhahaa waxaa qabanaya shift maya waxaa qabanaysaa control kadibna k yaa taabanaysaa. ay mid kala rabaa control qabo sidaas waxaa ku sameyn kartaa kuwa aad daris ahayn inaad doorato. qaabkaasa marka waxaa leenahay sidii loogu doortaa. hadaa rabti marka hal row iyo hal column kali inaad dooratid hore usoo sheegnay sidaas u dooran kartaa. hadaa rabti dhammaan inaad doorato ayadana waxaa sameyn kartaa. waxaa rabaa dhammaan cellska inaad doorto waxaa leenahay meeshaan tag qaybtan ina click siiyo wuxuu sameynaa cellka min bilow ilaa dhammaad uu ku heelad garaynaa. qaab kale waxaa sameyn kartaa shortcut control a inaad dhahdid ayadana dhammaan heelad ku saaro. kan marka midka active ka ahaa waaye sidaasoo ugu tagay. qaabkaas marka u sameyn karnaa. waa mahadsantihiin intaan ku keenaynaa cashirkeen.